Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawow kanaalka Noodaan. Maanta waxaan halkan inooga bilaabanayaa course ciwaankeedu yahay YouTube Master Gala, taas oo ay arday badan oo ku xiran Noodaan iga soo codsadeen. Inta ay socoto koorsadan waxa aad ku baran doontaa wax walba oo ku saabsan YouTube bilow ilaa dhammaad intii aan ka fahansanahay. Muuqaalkan waa muuqaalka koowaad ee koorsadan. Sida aad ciwaan kusoo aragteen, waxaan kaga hadli doonaa 7 waxyaabood oo loo baahan yahay inaad ogaato ka hor kusoo biiridda saaxadda YouTube. Walaal, xilli salaad haddii ay tahay fadlan tuko salaad. Lambar 1, hadafkeeda YouTube. Dadka way kala duwan yihiin dhan walbaba, waayo shanta faroodba Allah subxaanahu wa tacaala ma uusan simin. Inta aadan kusoo biirin saaxadda YouTube, waxaad isweydiinaysaa su'aashan: muxuu yahay hadafkaada YouTube? Ma hebel oo aan isgaranayno ayaa YouTuber ah oo anna waan noqonayaa, mise ina dadka daawadayaasha ah usoo bandhigto muuqaallo waxtar leh oo ay ka faa'iidaan? Waan ogsoonahay intiina badan inaad iga aqoon badan tihiin, aadna doonaysaan inaad kusoo biirtaan saaxadda YouTube, dadkana la wadaagtaan intii aad garanaysaan. Waan ogahay intiina daawanaysaa inaad horay u abuurteen YouTube accounts fara badan, laakiin maalmo kadib aad iska dhaafteen maadaama aadan helin daawadayaal, waayo ma aadan lahayn hadafkaadu waxa uu ahaa YouTube account sameey, muuqaal jacbura soo geli, oo xitaa aadan diyaarin. Laga yaabee inaad YouTube kala soo degtay kadib waa ay ku socon weysay arrintaa. Taladan ku siin lahaa waxay tahay hadaf sare lahaw, waqti sii diyaarinta muuqaalada iyo weliba xilliga aad soo dhigi lahayd, la wadaagidda asxaabtaada kala duwan si aad u hesho warcelin degdeg ah uguna dhiiranaato samaynta muuqaallo kale. Lambar 2 waa Gmail account. Samaynta account YouTube ah waxaa kaa xiga inaad leedahay Gmail account. Haddii aad horey u lahayd Gmail, 2 ilaa 3 step ayaa kaa xiga YouTube account. Haddii aadan lahayn account Gmail ah, fadlan hadda samayso si aad ula jaan qaado koorsadan. Ogsoonow, YouTube laguma isticmaali karo Hotmail. Linkiga hoose ka baro sida loo abuuro account Gmail ah. 3, joogtee soo gelinta muuqaalada. Inta badan ayaan aragnaa inta qof kanaal sameeyo maalmaha hore uu soo geliyo muuqaallo fara badan, kadib uu ka caajiso sababo la xiriira daawadayaal la'aan iyo isaga oo iska dhaadhiciyay in uusan waqti u hayn ama ay ku adkaatay soo saaridda muuqaalada maadaama uusan aqoon u lahayn, ama ay ka ahayd muuqaal duub ee soo geli uusan muhiimad gooni ah siinin. Wax walba oo aad rabtid inaad ka guulgaartid waa inaad waqti siisaa, soona saartaa wax faa'iido u leh bulshada inteeda kale. Sidoo kale waxaan kugula talin lahaa, samee waxa aad garanayso oo keliya. Laga yaabee adoo ku fiican bixinta koorsooyin kala duwan inaad doorato inaad noqoto vlogger. Way kugu adkaanaysaa ka guulgaaridda hamigaada. Samee waxa aad garanayso oo ha joojin. U samee waqti cayiman oo aad soo geliso YouTube-ka, sida Axad, Talaado, Arbaco, Jimco. Sidoo kale xadid saacadaad soo gelinaysid. Ha isdhihin haddii aan xadido waqtiga ama aan xilliga ka soo gaari waayaa oo aan meelo kale ku mashquulsanahay. Maya, YouTube waxa uu leeyahay qayb kuu suurtagelinaysa inaad muuqaal soo geliso una tilmaamto xilliga aad doonaysid ama aad u baahan tahay in la soo geliyo, asiga ayaana si otomaatig ah u soo gelinaya. Lambar 4, ka faa'iidayso dadka ka aqoon sarreeya. Daawo oo ku xirnaaw dadka ka aqoon sarreeya ama kaga soo horreeyay saaxadda YouTube, waayo faa'iidooyin badan ayaad ka helaysaa. Inaad ka kororsato aqoon, sidoo kale inaad khibrad badan ka hesho. Ku xirnaaw oo ka faa'iidayso kanaalo ka mid ah kuwa aad ka faa'iidi doonto oo isugu jira Soomaali iyo English. Linkiyadooda qaybta description-ka ayaad ka heli kartaa oo aan idin dhigay. Lambar 5, dulqaado. Maskaxda ka ilaali ma samayn kartid, waayo waxaa laga yaabaa inaad inta badan kugu adkaato samaynta muuqaallo tayo leh. Sida aan ogsoonahay, muuqaal aan tayo lahayn waqti ma qaato, laakiin muuqaalka inta badan laga shaqeeyay waad dareemi kartaan. Sidaa darteed, waxaan kugu oran lahaa, isdhiirigeli oo dulqaado, soo saar muuqaallo tayo leh, hana ka welwelin haddii aadan subscribe badan haysan, waad heli insha Allah. Muhiimaddu waa dulqaad iyo soo saaridda muuqaallo tayo leh. Lambar 6, la wadaag asxaabtaada. Tusaale, YouTube ayaad soo gelisay muuqaalkii kuugu horreeyay, kii labaad ama kii saddexaad, laakiin wax subscribe ma haysatid. Inta badan dadka ku fashilma saaxaddan YouTube ciladan mar walba way haysataa. Miyay jirtaa maanta haddii aan telefoon gacanta ee aan wato aan biyo ku dhex rido cid iga gadanaysa, laakiin haddii aan biyaha ka soo saaro waa laga yaabaa in laga gato. Marka waxaan ula jeedaa, YouTube boqolaal luqadood in ka badan ayaa laga helaa oo ay daawadaan dad kala duwan oo caalamka kasoo kala jeeda. Markii aad muuqaal soo geliso waa inaad la wadaagtaa dadka ku hadla luqadda aad wax kusoo gudbinayso. Ku sheergalay Facebook, WhatsApp, maadaama ay yihiin 2 platform oo aad iyo aad waaweyn. Lambar 7, u jawaab celi. Waqti sii daawadayaasha oo u jawaab celi. Iskuna day inaad su'aalo weydiiso. Sidoo kale weydii haddii ay fikrado ama barnaamijyo ay jecel yihiin in kanaalkada lagu soo kordhiyo ay jiraan.
laakiin haddii aadan u jawaab celin daawadayaasha, laga yaabay qofka inuu mar hal su'aal kusoo weydiiyo aadna uga jawaab weyso, inuusan mar dambe kanaalkaada kusoo laaban uusan su'aal kale kusoo weydiin maadaama aad tii hore aad uga jawaab weysay. Intaas ayaan muuqaalkeena maanta kusoo koobaynaa. Tan iyo casharka xiga kulanti dambe oo xiiso leh. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.